wiil dhalinyaro ah oo khayrka la jecel ehelkiisa iyo deriskiisaba iyo weliba sidoo kale dhammaan xaafadda ay degan yihiin. wuxuu talo wanaagsan siiyaa kuwa tubta ka leexday ee caasigaroobay, sidoo kalena kama daaho kama dibdhaco caawinta qofkii u baahan in la gacan qabto. wiilka walaalkii ah ee ka yar ayuu ka ogaaday inay jiraan dhalinyaro badan oo ku aafoobaya ama qabatimaya mukhaadaraadka ama maandooreyaasha. wuxuuna garowsaday inaanu ka baqiilin waaninta iyo waxusheega. qaarkood ayuu u tegey, wuxuuna ula hadlay si deggan, wuxuuna ka baraarujiyey suntan khatarta ah ee ay qabatimayaan. wuxuuna intaa u sii raaciyey, maandooreyaashan aad isticmaalaysaan waxay caro gelinayaan Allah subxaanahu wa tacaala, sidoo kale waxay idinka fogeynayaan waddadii toosneed, middaasi oo tegi jirtay jannada. waxaadna ka mid noqonaysaan kuwa loo carooday. wiilkii wanaagsanaa maalmo ayuu sidaa u sii waaninayay dhallinyaradii. markii uu xoogaa muddo badan ku noqnoqday waanintoodii iyo waxusheegoodiina aanu ka quusan, waxaa ilaahay idinkii soo hanuunay qayb iyagii ka mid a, iyagoo ka go'ay saaxiibbadii xumaa, waxayna noqdeen kuwo ku xidhan Allah subxaanahu wa tacaala. run ahaantii dadaalkiisii wuu midho dhalay, sidoo kale wuxuu ku qanciyey in ay salaadda jamaacada yimaadaan oo marnaba aysan moogaan masaajidka. ninkii iibin jiray muqaadaraadka ama maandooreyaasha ayaa ogaaday arrinta wiilka dhallinyarada uu sameeyey, kadibna waxa uu doonay inuu cashir yar u dhigo wiilka dhallinyarada ah si uu uga fogaado kastamarkiisa iyo dadka ka iibsada maandooreyaashan uu dhallinyarada ku dhex faafinayo. wuxuu ogaaday in wiilkan dhallinyarada ah ee wanaagsan uu sito mar walba boorso yar. boorsadaa yar waxaa ugu jira kitaabkiisa qur-aanka kariimka ah, xoogaa yaroo lacaga iyo weliba dhala yar oo catar ku jiro. boorsadaa wuxuu dhigtaa dhinaciisa marka uu tukanayo salaadda. ninkii mukhaadaraadka ama maandooreyaasha iibin jiray waxa uu soo galay masaajidka xilligii salaadda duhur. intaa kadibna qayb yar oo daroogo ah oo bac ku jirtay ayuu boorsadii u geliyey wiilkii oo aan ogayn. mid ka mid a asxaabtii la shaqaynaysana waxa uu sheegay inuu u waco booliska oo ay soo istaagaan masaajidka bannaankiisa marka laga soo baxo salaadda duhur. wiilkii wanaagsanaa oo qabaarmooga ayaa soo baxay, kadibna waxaa si kedisa uga soo horbaxay oo qabtay booliska iyagoo baaraya boorsadiisa. waxayna ka heleen qaybtii yareed ee daroogada ahayd ee boorsada loogu riday, horeyna loogu mishimay. markii wiilkii dhallinyarada ahaa uu arkay ninkii mukhaadaraadka ama maandooreyaasha iibin jiray, ayuu wuxuu yidhi, ilaahay baan kugu daayey dulmifalow, ilaahay ayaa kugu filan. wiilkii dhallinyarada ahaa ee wanaagsanaa si dulmi ah ayaa xabsiga loo dhigay. dadkii xaafadda markay arrintaa ogaadeenna run ahaantii waxay garab istaageen wiilka, sababtoo ah way ogaayeen inaannu isticmaalaynin maandooriye ama wax la mid ah. waxay gudagaleen inay garab istaagaan, sidoo kalena ay u soo duceeyaan. maalmo kadib ilaahay kuwa dulmiga falama moogee waxaa shil galay ninkii maandooreyaasha iibin jiray. shilkaasi sababtiisa ayuuna ku waayey gacantiisa midig, waxaana u dambaysay in lagu fariisiiyo gaariga loogu talagalay dadka lixaad kala. xaaladdiisii ayaa sii xumaatay, sidoo kale ilmihiisiina dhibaatooyin fara badan ayay dhexda ka galeen. markii adduunyadii ku ciriryoontay oo culaysyo fara badan ay soo food saareen, ayuu wuxuu u yimid qoyskii uu ka dhashay wiilkii wanaagsanaa ee sida xaqdarrada ah xabsiga ugu jira. wuxuuna u cudur daartay qoyskii, wuxuuna u sheegay in wiilka xabsiga ku jira ee sida xaqdarrada u xidhan uu yahay mid beri ka ah dembigaasi lagu soo oogay, sidoo kalena isagu yahay qofka qorshaha ka dambeeyey. wuxuuna u sii raaciyey qoyskii, iska kay cafiya, wiilkuna ha iska kay cafiyo. run ahaantii xaaladdaydu maalmahan ma fiicna. wiilkii xabsiga ayaa laga soo saaray oo laga soo daayey kadib markii la iclaamiyey oo dadka la ogeysiiyey inuu beri yahay. beddelkiisiina waxaa la xiray ninkii muqaadaraadka ama maandooreyaasha iibin jiray ee dhallinyarada ku halakayn jiray. wiilkii dhallinyarada ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku mahdiyey. intaa kadibna dadkii u yimid ee u tahniyadaynayey ayuu wuxuu ku yidhi, waxaan idin xasuusinayaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa, iska ilaaliya dulmiga, sababtoo ah dulmigu waa mugdiyaalo maalinta qiyaame. sidoo kale axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiid macnihiisu ahaa, iska ilaaliya dacwada iyo habaarka qofka laga gardaran yahay, sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dacwadaas iyo baryadaas dhexdooda uma dhexeeyo wax xijaaba, yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu ka aqbalayaa. ولا تحسبن
الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.